Kuma imaamkii hore ee xaramka Maka ee muuqaalka xayeysiinta ka soo muuqday bandhigga Riyadh. Dadka ku xiran baraha bulshada ee aadka ugu xiriiraan ee Carabta, gaar ahaan Sacuudiga, ayaa waxaa aad ugu mashquuleen laba arrimood oo buuqa kiciyay. Arrinta koowaad ayaa waxa uu ku saabsan yahay imaamkii hore ee xaramka Maka, Adil al-Qalbani, oo ka soo muuqday xayeysiin cusub, halka tan labaad ay ku saabsan tahay dib u dhigista imaanshiyaha kooxda dadka ka madadaalisa ee Stray Kids ee Korea, kooxdaas oo ka qayb qaadan lahayd bandhigga Riyadh, iyadoo arrintaasi loo saweeyay cimilada aan wanaagsanayn awgeed. Mar kale ayuu imaamkii hore ee xaramka Maka, Sheikh Adil al-Qalbani, ka soo baxay xayeysiin loo sameynayay bandhigga Riyadh, arrintaasi oo horseeday mowjad dhaleecayn ah oo ninkaasi lagu beegsanayay. Qaybta hore ee muuqaalka xayeysiinta ayuu al-Qalbani waxa uu xiran yahay dhar qarniyeed dhexe la xiran jiray oo ay militarigu xiran jireen. Waxa uu dul taagan yahay buur, halkaas oo uu ka daawanayo dabeyl soo socota. Muuqaalka oo aan 3 daqiiqad ka badnayn ayay dadku aad isula wadaageen ugana ra'yi dhiibteen. In ka badan 6 milyan oo jeer ayaa la daawaday tan iyo markii uu hogaamiyay hay'adda madadaalada Sacuudiga, Turki al-Sheikh, uu muuqaalkaasi soo dhigay bartiisa Twitter-ka. Al-Qalbani ayaa ku soo baxay muuqaalka oo ay ku jireen xiddigo kubadda cagta iyo shakhsiyaad kale oo caan ka ah Sacuudiga. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa hay'adda madadaalada Sacuudiga ahna xiddiga kubadda cagta Yasir al-Qaxdani. Al-Sheikh ayaa wuxuu ammaanay dadaallada dadkaasi ku jira xayeysiinta, isagoo hoosta ka xariiqay in dhacdooyinkaasi ay qayb ka yihiin natiijooyinka la doonayo in lagu gaaro higsiga 2030 ee uu bilaabay amiirka dhaxal sugaha ee Sacuudiga. Iyadoo dadka arrintaasi la dhacsan ay ammaanayeen muuqaalka xayeysiinta iyo qaabka loo farsameeyayba, waxaa dhanka kale jira dad kale oo ka carooday in Sheikha uu ka qayb qaato propagandada noocaas oo kale ah. Taageerayaasha xayeysiinta ayaa ammaanay dhiirranaanta al-Qalbani iyo in xayeysiinta dhacdada ay suuragal tahay inay gacan ka geysato abuurista shaqo cusub iyo inay hoos u dhigto sida boqortooyada ay ugu tiirsan tahay wax soo saarka shidaalka. Waa sida ay u dhigeen. Dhanka kalese waxaa jira kuwa in imaamkii hore uu ku lug yeesho xayeysiinta ay tahay isku day xun oo boqortooyada looga saarayo dhaqankii diinta ay lahayd. Qaarkood ayaa ku calaacalay in al-Qalbani oo hore imaam uga soo noqday xaramka Maka uu isu bedelay shactiroole. Ma ahan markii ugu horeysay oo al-Qalbani uu ka qayb qaato xayeysiinta loo sameynayo bandhigga Riyadh. Bishii November ee sanadii 2021, al-Qalbani ayaa waxa uu ku soo baxay muuqaal xayeysiin ah oo muran badan uu ka dhashay oo uu kaga sheekeynayay ciyaar Japan laga dheelo oo dagaal la xiriirta. Waxaad u baahan tahay inaad page-keena like iyo follow aad tiraahdo, ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka aynu ku leenahay Jawhar TV. Daawade mar